bismillaahir rahmaanir rahiim galab wanaagsan halkani waa xogbaahyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaynu ku soo qaadan doonaa natiijadii kulamadii shalay la ciyaare ee Euro 2020 iyo kuwa la ciyaari doono iyo kulamadii xalay ee Copa America waxaana barnaamijkeena ka marnaan doonin wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe inoo saar muuqaalkana like inoo dheh mahadsanid ayna ku bilaabnay waxa si xiiso leh u socda Euro 2020 iyadoo oo shalay la ciyaaray labadii kulan ee ugu dambeysay wareegga quarter finalka xulalka Czech Republic iyo Denmark ayaa ciyaaray ciyaartooda waxaana laba gool ay guusha ku raacday xulka wadankaasi Denmark ciyaar aad u xiiso badneed ayaa dhaxmartay xulalka Ukraine iyo England waxaana goolal gaaraya 4 iyo waxba guusha ay ku raacday xulka wadankaasi England haatan ayaa loo gudbay kulamada semi-finalka waxaana isugu soo haray kooxood oo kala ah Italy, Spain iyo England iyo Denmark xulalka Italy iyo Spain ayaa isla ciyaari doona halka xulalka England iyo Denmarkna ay wajihi doonaan waxaan kulamadani ay dhici doonaan 6 iyo 7 bisha 7 ee haatan aynu ku jirno sidoo kale xalay ayaa la ciyaaray Copa America xulka wadankaasi Colombia ayaa la ciyaaray xulka wadankaasi Uruguay ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday ever balse laad ku tuur la isla ciyaaray ayaa waxa 4 gool iyo 2 ay guusha ku raacday xulka wadankaasi Colombia xulka wadankaasi Argentina ayaa 3 gool iyo waxba ku garaacay xulka wadankaasi Ecuador waxaana sidoo kale Copa America oo haatan maraya heerkiisii semi-finalka xulka wadankaasi Brazil ayaa la ciyaari doona xulka wadankaasi Peru halka xulka wadankaasi Argentina uu martingeli doono xulka wadankaasi Colombia ciyaarahan ayaa sidoo kale dhici doona 6 iyo 7 bisha haatan aynu ku jirno markana aynu u gudubno wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda sida ay daabacday ABC Deportes daafaca kooxda Real Madrid iyo xulka France Rafael Varane ayaa heshiis horudhac la gaaray kooxda Manchester United sidii shalay aan wararkeen idinku soo gudbinayba Manchester United ayaa wada hadallo kula jirta dhigeeda Madrid waxaana maanta wararka sheegayaan in United ay durbaba heshiis shakhsi ah la gaartay Varane laacibka xulka France ayaa kooxdiisa Madrid u soo bandhigtay heshiis 4 sano ah iyagoo u ballan qaaday sanadkii 7 milyan oo euro balse Manchester United ayaa xidigan u soo bandhigtay 12 milyan oo euro in ay guna ahaan u siin doonaan sanadkii 28 jirkan reer France ayaa haatan kooxdiisa Madrid oo wada hadallo kala galaya sidii ay ugu fududeen lahaayeen ku biiristiisa Red Devils isagoo doonaya in 2 isbuuc gudahood lagu gaaro heshiis si uu ugu biiro tababarka United ay iskugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub Manchester United ayaa weli diidan in ay bixiso lacagta Madrid ay doonayso oo ah 60 milyan halka United ay diyaar u tahay 38 milyan in ay bixiso naadiga reer Spain ee Real ayaa ku dadaalaysa sidii ay lacag fiican uga heli lahayd heshiiska Varane maadaama ay si bilaash ah hore ugu fasaxeen kabtankoodii Sergio Ramos sidoo kale warar xalay soo baxay ayaa sheegaya in naadiga Madrid ay United ka dalbatay in ay qaab amaah ku hesho khadka dhexe ee xulka Holland iyo kooxda Red Devils ka Donny van de Beek Real Madrid ayaa hore u doonaysay xidigan inta uusan ku biirin Manchester United balse macalinka cusub ee Real Carlo Ancelotti ayaa daneynaya laacibkii hore ee Ajax in kooxda laga soo dejiyo Madrid ayaa rabta in marka hore amaah lagu siiyo xidigan sanad kadibna ay go'aan ka gaarto hadii ay si toos ah u la wareegayso in kale dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Nuno Espirito Santo ayaa naadigiisa ka dalbaday in kooxdiisii hore ee Wolves ay ka soo iibiyaan daafaca xulka England iyo kabtanka kooxdaasi Conor Cody sida ay qortay 90 minutes 28 jirkan ayaa xiiso ka helaya macalinkiisii hore waxaana la tilmaamayaa in xidigan uu ku faraxsan yahay ku sii nagaashaha garoonka Milano daafacan oo haatan ka tirsan xulka England ee ciyaaraya Euro 2020 ayaa sanadkii hore u saxiixay heshiis cusub balse maamulka Wolves ayaa aqbali kara fasaxa xidigani hadii Tottenham ay qiimo macquul ah la timaado laacibkan ayaa muddo 6 sano ah ku sugan Wolves waxa uu ka mid yahay daafacyada ugu khibradda fiican Premier League waxa uu si wacan ugu milmi karaa shaxda macalinka reer Portugal dhinaca kalena sida uu daawacay Tutto Sport kooxda kubadda cagta
cagta ee Barcelona ayaa ku biirtay tartanka loogu jiro saxiixa weeraryahanka da'da yar ee kooxda Sampdoria iyo xulka Denmark Mikkel Damsgaard 22 jirkan Danishka ah ayaa qabtay indhaha kooxaha ugu waaweyn Yurub markii qaab ciyaareed wacan uu ku soo bandhigay Serie A sanadkii dhamaaday. xidigan oo sanadkii hore ka mid noqday Sampdoria ayaa si tartiib ah ula qabsaday tayada horyaalka Talyaaniga, inkastoo 2 gool kaliya oo shabaqa ku hubsaday. xidigan da'da yar ayaa haddana qaab ciyaareedkiisa ayaa ahaa waxa ugu weyn ee rajada geliyay kooxaha Yurub. kooxaha Juventus iyo AC Milan ayaa horey xidigan loola xiriiriyay, balse kooxda Barca ayaa haatan tartanka dhinaceeda ka soo gashay. kooxda Sampdoria ayaa lagu waramayaa in xidigan ay qiimo sare dul dhigtay iyaga oo doonaya 50 milyan oo euro. doonista Barca ee xidigan ayaan ahayn mid yaab leh maadaama mustaqbalka laacibkooda Ousmane Dembele aan la hubin, waxaana sidoo kale Barca ka baxay weeraryahankoodii da'da yaraa ee xulka Portugal Francisco Trincao oo si amaah ugu biiray kooxda reer England ee Wolves. weli waxaynu ku jirnaa wararka Barcelona. maanta ayaa waxaa soo baxay warar tilmaamaya in kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ay heshiis u soo bandhigtay mucjisada kubadda cagta ee Lionel Messi. Messi ayaa haatan ciyaaryahan xor ah maadaama uu gabagaboobay heshiiskii uu kula jiray Barcelona. wadahadalo ayaa u socda kooxda Barca iyo xidigan oo heshiis cusub lagu siinayo Messi, balse PSG ayaa doonaysa in isfaham la'aanta labada dhinac ay ka faa'iideysato. maamulka PSG ayaan horey u qarin xiisahooda ah in midkood Messi ama Cristiano Ronaldo ay karoonkooda ka soo dejiyaan, waxaana riyadaasi ay haatan u muuqataa mid la gaari karo. xidiga kooxda Juve ee Ronaldo ayay u badan tahay inuu ka hayaamo Bianconeri, halka Messi uu wada hadallo waqti dheer qaatay uu kula jiro maamulka Barcelona. ma kula tahay in PSG ay afduuman karto Messi? fadlan fikirkaaga qaybta hoose ee commentiga inagu reeb. dhinaca kale, kooxda Barcelona ayay u badan tahay in ay kansasho heshiiska ay kula jirto labadeeda xidig ee Miralem Pjanic iyo Samuel Umtiti. maamulka Barca ayaa doonaya in waqti hore ay fasaxaan labadan xidig iyaga oo doonaya in ay yareeyaan qarashaadka ay ciyaartooyda ku bixiso naadiga. dhanka kalena, kooxda reer England ee Brighton ayaa doonaysa saxiixa garabka Manchester United iyo xulka Wales Daniel James. kadib imaanshiyaha kooxda Red Devils ee Jadon Sancho ayaa ka dhigan in xidigan uusan heli doonin waqti badan oo uu ku matalo United, waxaana midaasi ay fursad siinaysaa kooxda Brighton. tababare Oli ayaa ah taageeraha xidigan ah, waxaana macquul ah inuu hor istaago isku day walba oo xidigan uu kaga bixi karo garoonka Old Trafford. ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa wado qorshe ay naadiga kaga dirayso xidigii hore ee Chelsea William oo si bilaash ah xilli ciyaareedkii hore ugu soo biiray Arsenal ayaa qaatay xilli ciyaareed liita, waxaana tababare Mikel Arteta uu haatan diyaar u yahay in xidigan laga fasaxo naadiga. kooxda ka ciyaarta MLS ee Inter Miami ayaa ahayd kooxda ugu dhow heshiiska laacibkan, balse maalmo ka hor ayay labada dhinac isku fahmi waayeen mushaharaadka laacibka uu qaadan doono. barnaamijkeeni galabtana waa inaga inta. halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha. waa channel cusub oo ugu talagalay in idinkugu soo gudbiyo warbixinadii ugu dambeeyay kubadda cagta caalamka. dhageysta ama daawada haddii ay ku qanciyeen warbixinadeena, fadlan subscribe iyo like kanaalka. wixii taliyo tusaale ahna inuu ugu soo gudbiyo commentiga. mahadsanidin.